wariyuhu wuxuu qabsanayaa shaqadiisa runna ha ahaato ama been ha ahaato laakiin waxa fiican wax walba aad samaynaysaan dhacdo kasta oo lagu soo baahiyo baraha bulshada sida lagu xaqiiqsan kara dhabaanshiyaheeda ma ahan in cidda baahisi ay tiraahdo waa xaqiiqo oo keliya mararka qaar waxaa dhinacyada fariinta gudbinaya looga baahan karaa caddaymo dheeraad ah xasan cabdirashiid malabsade saddexaasle maanta gabdhihii aad ku arki jirteen xaasaskiisa dabcan kuma dhex jiro anuu ila jooga mudulkan yarka ah ama qoladan yartaan ku jirnaa soo dhow walaalkii soo faysan aad u maasan tahay waan dhowaa walaalkii baraha bulshada aad bay fariintaadii u gaartay oo dadku ay u hadalhayeen laakiin xaqiiqada dhabtaan maanta ka hadlaynaa of course saddex xaas ma aadan guursan waxaad ii sheegtay in wacyigelin ay ahayd arrintaas goormay kugu dhalatay sidee bay kugu dhalatay wallaahi maadaama aan aniga nin dhalinyaro oo aan ahay nin social media ku dhex jiro ama wax badan ka fahansiisan social media waxa waa igu dhalisay in aan arrinkaas sameeyo sababtoo ah waxa waaye haddii oo aad waxa waaye horta maalmaha waxaa social media ku batay in beentii la baahiyo ee dadkiina ay rumaystaan soomaalida abal hor waxaa ku jirta dad waxa waaye oo aqliyan iyo aqooniyanba ka diyaarsan oo markii waraxii ay arkaan inta maskaxdooda tuujiyaan aad iyo aad rogrogaan oo maskaxdooda tuujiyaan halka saxda ama ujeedkeeda soo ogaada laakiin hadda waxay noqotay sanadadan u dambeeyay in qof walbo iska qeyle ama qof walbo wax sameeyo aana la dhihin feedback aan la fiirinin oo markaas la iska rumaysto marka sababta ugu weyn oo ugu dhalisay aad iyo aad sababta ugu weyn oo ugu dhalisay intaas eed inaan arrinkan aan sameeyo marka waa kaas waxyaabaha xasanow beenaha ah ee baraha bulshada ku baahay ee aad aragtay ee kugu sababay in aad yacni ka dhiidhiso oo ummadii aad yacni bal u abuurto hab fikir yacni mataqaanaa waxaan looga wacyigelin karo maxaa ka mid ahaa beenahaas walaalkeygii hadda ugu dambeyn haddana ugu dambeysay maanta waxa waa 8 February oo xalay 6 saac isbedel saacadii iyo waqtigii xalay su'aalan ku weydiinaa ilaa 9 saacna waa soo jeeda baraha bulshada waxa wareega in wadankii oo rasaasaysan ama afgambi oo ka jiro ama banaan bax zaa'id ugu jiro marka xalay su'aalan ku weydiinaa wadankeena waa la joogtaa xabad ma maqashay maya laakiin beentaas waxay ka socotay Facebook-yada dadkiina waa rumaysan dadkuna inta badan waa qaateen xasan cabdirashiid oo ku magac dheer malabsade waa nin dhalinyaro ah oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn u haystay aaladda Facebook-ga isaga iyo 3 hablood oo uu ku sheegay in xaasaskiisa cusub ay yihiin isla markaana uu kula aqalgalay hal guri oo ku yaala magaalada Muqdisho malabsade waa wacyigeliye tababaro nololeed iyo mufakir haddii sida uu sheegayo qorshihiisu ahaa inuu si maldahan bulshada uga reebo hubsimo la'aanta ay ku wajahayaan mararka qaar macluumaadka lagu fidinayo baraha bulshada arrinkan aniga waxaan u sameeyay wacyigelin si hadhoodii waxaan haddana aan rabaa inaan mar aan soo sameeyo waxyaabo badan oo aadan ogeyn haddana oo wacyigelin oo noloshiina ku saabsan aan soo wadaa ma fahamtay waxyaabahan markan aad ugu dambeyn waxaan leeyahay guur maleenayaan meel kale oo adiga aad ka soo gali doontid aad iyo aad ugu dambeyn waxaan leeyahay guurku ceeb maahan waa wax Ilaahay jideeyay waa wax loo baahan yahay in la guursado laakiin in sida qaldan ama gabdhaheena in la baadilo hadda dad waxay maleeyaan in gabdhaha waxay la soo sameynayeen in dad siseeya ama dad homeless jobless ahayeen oo aan taasoo ararubiya guri isku keen inay hayeen umaleeyaan waxay u aamineen in xaasas dhab ay yihiin marka dadkaas waxaan gabdhahaas waxay ahayeen gabdho walaaladaya oo anagoo meel wada fadhin meel coffee oo anagoo iska shaaxeynayno ee fikradaas markay u soo dhacday eedaniyo wallahi waa arin loo baahan yahay wacyigelin waan ka wacyigelinayna waana sameeynayna waana ku garab istaagsanaa heel iyo hooba waxay noqoleen marka wallahi in gabdhahaasna waa u mahadcelinaya igala qayb qaatay marka intaysan sii dheeraarin ama arin kale ay sii gaxad gudbin koos haddaan u dambeeyay dad wax arkaya aniga familkeyga oo inoo aflagaadeena ilaa waxyaabo ay sameynaya ka kuleedeen yani wacyigelinta aad waday aad u sheegtay inay wacyigelin lahayd ay wacyigelinayda marka saas u ogaadaan waa maasanta xasan aad baa maasanta dhinaca kale muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa dhulalka ay Soomaalidu degan tahay ka soo shacbaxay dhacdooyin la xiriira rag hal mar guur wadareed dhiganaya Soomaalidu waa dad muslimiin oo aaminsan in ragga ay u bannaan tahay 4 xaas
laakiin waxa ay la yaabayeen ayaa ah in hal mar uu ninku isku guursado 4 xaas maadaama ay bulsho ahaan yihiin dad colaado iyo burbur ka soo kabanaya oo dhaqaale ahaan u liita. Maxamuud Soo Faysane 5TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier